بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبka Soomaaliyeed meel joogtiin buu idin salaamaya. Waxaan rabaa inaan idin la wadaago dhacdooyin labana shalay ay dhacday, labana ay kasii horeysay. Hor istaagii lagu sameeyay 5 xisbi oo ku shiraysa magaalada Muqdisho oo ujeedadooduna ay ahayd inay ka tashadaan sidii u midoobi lahaayeen. Taas oo aan u aragno inay tahay arrin aad iyo aad muhiim u ah dalkan maxaa yeelay nidaamka iyo hanaanka dimuqraadiyiinta ay horseedaysaa inay dadku mataqaana ka fikiraan habka ay wax wada qabsan lahaayeen uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka. Marka nasiib darro waxa ah in ayagoo mas'uuliyiintaas u fadhiyaan oo tashanayaan in ciidamada amnigu xoog ay ugu galaan oo shirkoodii halkaasi mataqaana fool xun u joojiyaan. aad iyo aad ugu xunnahay waana cambaareynaa falkaas, waana fal ka baxsan sharciga, dastuurka ka baxsan, dhaqanka wanaagsan ka baxsan, dowladnimada ka baxsan inay ku dhaqaaqdo oo ciidamada amniga arrintaas ku dhaqaaqaan. runtii waa nasiib darro aan u aragnaa. waxayna muujinaysaa sida looga been sheegayo doorashooyinka oo runtii aan horena uga digaynay, haddana markhaati cad ay taasi u tahay. dhacdada labaad isla shalay dhacday waxay ka dhacday deegaanka Jaziira. waxaa xadgudub lagu sameeyey dadkii halkaas joogay, mas'uuliin iyo shacabba. gudoomiyaha deegaanka oo mar dhow la soo magacaabay oo lagu yaqaano qof nabadeed oo mas'uul inuu yahay, ka soo jeeda dad nabadeed oo aan weliba dadka hubeysan aan ahayn. lagu dilay halkaas 2 qof oo dhalinyaro ah. uga tacsiinayna ahalkoodii iyo qaraabadoodii. sidaas oo kale ummadda Soomaaliyeed ayadana waxay muujinaysaa yani waxshinimada iyo sharci ku tumashada ciidamadu ay sameynayaan iyagoo caburinaya mas'uuliyiinta iyo shacabkaba, taasoo iyadana ka baxsan dastuurka iyo qaanuunka, lana isticmaalayo hubkii iyo mataqaana awoodii loogu talagalay in lagula diriro al-shabaab iyo dadka kasoo horjeeda nabadda. runtii iyadana nasiib darro u aragnaa. dhalinyarada dhimatay ilaahay ha u naxariisto, ahalkoodii qaraabadoodina sabr iimaan Allah ka siiyo. ayagana aad iyo aad uga tacsiinaynaa. waxaa jirtay 2 dhacdo kale oo kasii horeysay oo midna lagu sameeyay ururka haweenka qaranka oo looga bixiyay hoygoodii iyo xafiisyadoodii si aad u fool xun loola dhaqmay, xabsiyo la geeyey. runtii lagu sameeyay wax aad iyo aad uga baxsan dhaqanka wanaagsan iyo dowladnimada. haweenka Soomaaliyeed oo la wada ogyahay siday uga qayb qaateen dowlad dhiska, habeen maalin u taagnaayeen in ay dowladnimadu ay soo istaagto, in la xalli waayo oo lagu xalliyo boolis iyo in la xiro. ayadana nasiib darro aan u aragnaa, waana cambaareynayna. sidaas oo kale ganacsatada magaalada Muqdisho oo ayagana beryahan culayska lagu hayo aad u soo badanayo keentay suuqa ugu weyn magaalada Muqdisho inuu xirmo. ayadana waxaan aad iyo aad uga xunnahay waaye. dhaqaalaha waxay ahayd in la dhiirigeliyo ganacsatada si uu u koro. ilaan wax soo saarkii ma jiro dalkan, wax soo saarka ma socdo. ugu yaraan in la dhiirigeliyo ganacsiga ahayd. marka canshuuraha aan meel loo dayin maalin walba la saaro ganacsatada waxay keentay iyadana inay suuqadu xirmaan. taasna iyaduna waa arrin kale oo runtii aan u adeegaynin dowladnimada. markaan isku soo darno dhacdooyinkaas iyo kuwii ka soo horeeyay waxay muujinayaan in la marin habaabay, dowladnimadii lala dhumay, meel khaldan loo socdo. marka waxaan leenahay wadada sharciga iyo dowladnimada u soo laabta. waxa hadda aad sameynaysiin horay ayaa loo soo baroobeeyey 33 sano wixii soo socda inaad dib ugu laabatiin. runtii waa nasiib darro. marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed sharafkeeda iyo karaamadeeda in lagu tuntaa ayadoo la adeegsanayo magaca dowladnimada. runtii waa nasiib darro. dalkan dhibaatooyin fara badan ka jira, ha noqdaan dhinaca amniga oo aan wada ognahay, ha noqdaan dhinaca dhaqaalaha. yani dad badan oo dan yara maanta ma haystaan, noloshoodii ma haystaan. marka maalinta ka dambeysa in la sameeyo waxyaabo runtii sii dhibaateynaya shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka masaakiinta ah, nasiib darro u aragnaa. marka waxaan leenahay u soo laabta caqliga wanaagsan iyo dowladnimada, sharciga in la ilaaliyo,
oo dastuurka la ilaaliyo dowladda u ahaa karahe laguma ahaa karo qorayaan sitaa ciidan gaar ahaan samaystay anaa waxaan doona samaynaye dowladnimo kuma ammaanayso aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.